waddankeena markii uu baaba'ay ama burburay oo dhibaatada ay ka dhacday ummadda Soomaaliyeed ma ayna isu dhiibin waaqaca xanuunka badan ee soo marnay ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka aqoon-yahanada Soomaaliyeed ah waxay isu xilqaameen oo isu taageen in noloshii la sii wado isku tashi dhacay ayaa waxaa ku hirgelay maanta inaan u dabaaldegayno sanad guudii 20aad shirkadda Hormuud oo runtii sida magaceedaba ka muuqata Soomaaliya hormuudka ah dhinacyada badan oo ganacsiga marka isdhiibis la'aantaas keentay maanta inaan halkan soo gaarno waxaan u mahadcelinaynaa qof kasta oo qayb ka noqday qurxinta waddankeena oo adeegida bulshadeena horumarkeeda meel kasta oo la dhiso yani qurux iyo sharaf ay noqoto kulligeen ayay dan oo wada tahay haddii marka waxyaabaha qaarkood hal iyo laba ka yiraahdo hambalyadana aan qayb ka ahay oo ma hambalyeynaayo oo maanta ay tahay maalin la isu hambaliyeeyo oo la yiraahdo hawshii noo soo qabsoontay 20 sano la soo dhaafay iyo waxay aan soo marnayna ay halkaas aan soo gaarnay horeyna uga sii socono 20 sano oo hor leh saan u qorsheysan leeyna aan ka tashano waxaan tusaale soo qaadanayaa qaybaha ka mid ah shirkadda Hormuud qayb ka mid ah oo shaqo wadaag aan noqonay oo shirkadda Buruuj ah oo laba mashruuc oo waaweyn runtii qayb nagala ahayd labada mashruuc oo ah masjidka Umar ibn Khattab oo ballaarintiisa iyo inuu maanta sida uu yahay oo noqdo qaybta shubka iyo wixii ku saabsan ay qayb weyn ay nagala lahaayeen oo ay nagala qayb qaateen oo markii kolba meesha soo gaaro aan warqad soo qoraynay oo qiimaha u baahanahay iyo sidaan u baahanahay isla markii ay nooga soo jawaabayeen oo runtii qayb weyn meeshaas aan uga mahadcelinayno iyo wadada laamiga ah ee xoosh ka bilaabata ee u sii socota degmada Kaxda oo kiiloomitirka 4 maanta shubitaankiisa laamiga uu maraayo oo runtii qurux ku soo kordhiyay deegaanka sida ay tahay oo shirkadda Buruuj ay qayb nagala tahay marka haddii dadku ay wax qabsadaan oo ay isku tashadaan nolol ay abuuri karaan marka qofka inuu ku dadaalo halkana wax qurux badan inuu keeno si Ilaahay agtiisa wax qurux badan uga helo waxaan leeyahay shirkadda Hormuud waa Hormuud Soomaaliyeed guuleysta. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.